nabadda odayaasha iyo asxaabta xiisaysa ciyaaraha. Iminka iyo haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii ciyaaraha. Barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaarihii xiisaha iyo xamaasadda badnaa ee xalay ilaa shalay ka qabsoomay garoomada dalka Ingiriiska. Ugu horreynba qodobada aynu ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah Man City oo goor horeba 1-0 ku afartay kooxda Wolves hogaankana sii dheeraysatay. Chelsea iyo kooxda uu hogaaminayo tababare Marcelo Bielsa oo ku kala caraabay ciyaar ay gool ku laageedo harbeeleen, isla markaana la isla galgashay ilaa iyo khaatumada. Kooxda Liverpool oo garoonkeeda ku soo dhaweysay halyeygeedii Steven Gerrard oo hogaaminaya kooxda Aston Villa. Daawadayaal, qodobadaasi iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaynu ku maqli doonaa inta ay socoto baahinteena barnaamijkeena galabta. Ugu horreynba waxaynu soo qaadan doonaa kooxda Manchester City oo hogaaminaysa horyaalka dalka Ingiriiska ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweysay kooxda Wolves iyadoo oo ku dad raacisay 1-0. Kubaduhuna waxa ay goolka Wolves ugu hoobanayeen sida shiidka iyadoo oo goolwadaha kooxda Wolves uu marnaba nasan waayay. Ugu dambeyntii kooxda Manchester City ayaa halkaasi hogaanka ku soo dheeraysatay goor horeba oo galabnimada ah. Dhanka kale kooxda Liverpool ayaa iyaduna 1-0 ama 0 ku daafadaysay kooxda uu baryahan soo shiday halyeygoodii hore ee Steven Gerrard, iyadoo isla markaana gambadhkeeda kaalinta labaad sii adkaysatay, sidaasina ku calan walaynaysa booska labaad ee kala sarreynta. Ina Saalax ayaa goolka madiga ah u keenay kooxda Reds oo ka welwelsanayd in la hakiyo maalintii shalay. Kooxda Chelsea iyo Leeds ayaa iyaguna ku kala baxay ciyaar gool ku laageeda lagu tartamay oo si xidhiidh ah loo dhigayay 3 gool ku laag oo markaasi ka dhacay ciyaarta gudaheeda. Halkaasina waxaa isagoo ka faa'iiday Jorginho oo isagoo quuta gool ku laageeda isla markaana laaga kubada binis u badan balse aanay gool hayayaashu qabanin inta badan. Sidaasina Chelsea ayaa gambadhkeeda kaalinta saddexaad risiirka u goosatay oo sii xejisatay maalintii shalay. Balse dhanka kale kooxda Arsenal ee macallim Arteta uu hogaamiyaha ka yahay ayaa iyaduna sida Tigreega u xasuuqday kooxda ay baryahan ka hoostay ee Saints ama kooxda Southampton, iyaga oo shabaqooda ku shabay goolal gaadhiya 3 gool. Dhinaca kalena kooxda Manchester United ayaa iyaduna kooxda Norwich ee taxadka hoose rafanaysa jooga ka sii riday oo waxa ay ku gamaariyeen 1 gool oo seeka ah, kaas oo dhaliyay doqayso haysta inuu weli dhalinyaro yahay ee Cristiano Ronaldo. Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United ayaa isaguna guul kala gaaray toddobaadkan. Barnaamijkeennii guud ahaanba halkaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Xasan Barre Ducaale ah. Inta aynu kan oo kale isugu iman doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.